Asalaamu calaykum kusoo dhawaada Dhalaan Production. Maanta waxaan baraynaa xarfaha laba laama ama shibanayaasha laba laama ama kelmadaha laba dhaca marba sida loo yaqaano. Haddaba shibanayaasha laba laama ama xarfaha laba dhaca waxaa loo qaybiyaa 7 xaraf waxayna kala yihiin ba, da, ga, la, ma, na, ra. Xarfaha laba laama ama laba jeer la qoro waxaa lagu garan karaa qodobada soo socda. 1. Xarfaha laba laama marka lagu dhawaaqayo ayaa dhawaaqoodu adag yahay ama sida quraanka lagu yaqaanba waa u shidan yihiin ama way adag yihiin. Qodobka labaad, xarafka dhawaaqiisu adag yahay ee laba laama waa inuu dhexeeyaa laba shaqal, shaqal dheer ama shaqal gaaban, ama waa inuu shaqal ka soo horeeyaa shaqal kalena ka dambeeya. Qodobka saddexaad, xarafka laba laamaya waa inuusan ugu dambayn erey ama kelmad uu ku jiro. Hadda waxaan soo qaadanaynaa tusaalayaal xarfaha laba laama. Ba baynu ku bilaabaynaa oo xarafka koowaad ah waxay noqonaysaa aabe, ubbo. Xarafka labaad waa da, tusaale wadan, eedo. Xarafka ga ee saddexaad xooga, xariga, hoggaan. Xarafka afraad la, balli, ballan. Xarafka shanaad ma, ummad, dhammaad. Xarafka lixaad na, sanad, hannaan. Xarafka toddobaad ra, carro ama xorriyad. Xarfaha laba laama waxaa lagu soo ururin karaa dhowr weerood oo macno kala duwan samayn kara waxayna noqon karaan sida soo socota. 1. Manala garaadba. 2. Magaaladan baro. 3. Ma rabno dagaal. 4. Magaalada baran. 5. Boora manala deg. 5 weerood ama jumladood waxay soo koobayaan 7 xaraf ee laba laama. Haddii aynu wax ka soo qaadano ereyga af Soomaaliga ah iyo sida xarfaha laba laama wax uga bedelaan waxaa ka mid ah tusaalahan. 1. Geedi waa marka ay da'du laba laaban tahay ama laba jeer loo qorayo. Magac ragga loo bixiyo ayaa loo yaqaanaa. Laakiin markay da' kaliya tahay geedi waxaa loo yaqaanaa hayaan. Waa weel la adeegsado kolka uu reerku ka guurayo kobtii, qormadii ama meeshuu deganaa una guurayo sabo, raas ama meel kale oo ka duwan meeshii hore uu deganaa. 2. Bare waa markay raadu hal mar qoran tahay. Waa erey af Soomaali ah oo u dhigma ereyga af Carabiga ah ee macallin oo ah kii dadka wax barayay. Laakiin markay bare tahay oo ereyga raadu laba laaman tahay waa magac ragga loo bixiyo. Qodobka saddexaad waran waa markay raadu hal mar qoran tahay waa qalab dagaalka lagu galo. Laakiin markay raadu laba jeer laba laaman tahay waxa weeye waran waa erey la adeegsado marka aad qof wareysanayso ee aad leedahay ii waran. Qodobka afraad carab waa markay raadu laba laaman tahay waa xubinta wax lagu dhadhamiyo. Laakiin markay raadu hal mar qoran tahay carab ama carab waa jinsiyadda qoomiyadda Carabta. 5. Eedo waa markay da'du hal mar qoran tahay waa shay aan la mahadin. Markuu qofku go'aan xun qaato ayaa la yiraahdaa go'aankiisa buu eeday. Laakiin markay da'du laba jeer qoran tahay eedo waa aabbo walaashii. Lamaka lixaad kabo waa markay ba'du hal mar qoran tahay wadarta jamaca isku geynta kabo badan. Laakiin markay ba'du laba jeer qoran tahay ama laba laaman tahay waxa la yiraahdaa kabo oo macnaheedu noqonayo cabid, kabo biyaha ama cab biyaha. Waad mahadsantihiin.